marka saalax waxaan leenahay saalax qori soo qaado waxa timaada gooja cad inaad qori soo qaato baa ku dhiman dagaaladii dhowr sagaashkii ku wada jireen kuwii abtiga hoydaan adlayseen xoolo dhaqatana ninkan ma ahayn muxuu ahaa wuuna dagaalamay qorigiisu nisid waxa weey dadka la dhibaateeyay awlaadooda waalidkood la xasuuqay dhibaatada loo geystay guryaha lagu duminay waxa weey qaar aan la xakameyn karin waxa weey dhibaatooyinka meesha geysateen baa waxan ka weyn cid dhaawac lagu dilay anagu garan mayno idinkaan idiga maqan dagaaladii dhowr sagaashkii ku wada jireen kuwii abtiga hoydaan adlayseen xoolo dhaqatana ninkan ma ahayn muxuu ahaa wuuna dagaalamay qorigiisu nisid waxa weey dadka la dhibaateeyay awlaadooda waalidkood la xasuuqay dhibaatada loo geystay guryaha lagu duminay waxa weey qaar aan la xakameyn karin waxa weey dhibaatooyinka meesha geysateen baa waxan ka weyn cid dhaawac lagu dilay anagu garan mayno idinkaan idiga maqan waxaan arkay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dawladda federaalka Soomaaliya oo ka soo jeeda muxuu ahaa gobolada Togdheer iyo Hargeysa oo ka hadlayay muxuu ahaa arrimahan SSC qadiidahan SSC saalax waxa weeye wuxuu ka hadlay wuxuu taageeray maleeshiyaadka Soomaaliland ee dadka halkan jooga muxuu ahaa dhibaatadii xasuuqa ku hayay muxuu ahaa gardaradii iyo dulmiga halkan ka dhacayna wuxuu saaray dadkii la dulmiyay ee lagu gardarooday dadkaas oo ah ay ugu horeeyaan simadii dhaqanka muxuu ahaa iyo bulshadii kala qaybeedii kala duwanaa ee gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaano saalax 2000 waqti saalax ahaa muxuu ahaa wasiirka saalax loo wasaarood buu soo maray inta wasiirka dastuurka laga dhigin xildhibaanna uu ahaa wuxuu noqday wasiirka waxaan jeclahay inuu markaa ahaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada garow waan isku aragnay saalax soo garow jooga anoo fasaalaxda family baan hadda habto baan u ahay marka saalax garow waan isugu nimay isagoo la socdo wasiirada soo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waftiga hogaaminayo Xasan Cali Khayr waqtiga ahaa isagoo la socda baan hotel Hargeysa waxaan isku aragnay hotel Garowe ayl baan isugu nimay anoo waqtiga xajkaan ka yimid isagoo waqtiga xamar buu ka yimid anoo waqtiga makaan ka yimid saalax waan iswareysanay waqtiga Cabdiwali Gaas madaxweynaha iishigu waxa taagnaa caari oo markaa jamhada hayo Garowe isna joogay saalax hotel ayl baan iska raacnay ilaa hotel Flames leedaan ku caawinay waqti dambe oo leeto habeenimo ah midnight aan kala tagnay saalax inta uu qamiyeysanayo wuxuu ka sheekeynay garxijis baa la dulmiyay saaq baa garxijis ugu tagay 94 baa garxijis huwa baadishay saaq leeyahay haddana garxijis kursiga madaxweynaha loo diiday garxijis waa la gumay garxijis waa xoreynaya xamar waxaan u iman garxijis xoreeyo halkaas oo saalax hadalka la mara markaas saalax dabarakacan halkan ka sheegay waxa weeye maalinta wuxuu doonayay muxuu ahaa inuu garxijis wax ugu yeeray inuu xoreeyo awood iyo itaal uu muxuu ahaa ama ku barakiciyo ama ku difaacana uu waay markaas saalax isagoo halka maraya noogu dambeysay inuu arrimahan deegaankan oo saalax tala iyo muxuu ahaa iyo meel ka soo galaa uusan ku lahayn inuu ka hadlaa sax maaha saalax ilaa 60 casha halkan dagaal iyo xasuuq ka socotay waxa weeye wixii abtaal leeyahay habriiri baa halka lagu xasuuq oo dhibaato ku gaadhay maalin kama hadino mutaacsiyaday 10 warqadood buu qoray muxuu ahaa uu qoray muxuu ahaa international community gaan ognahay leeyay war booliska ra'iisul wasaare ku-xigeenku meel ka shaqeeya garan maynay madaxweynaha Soomaaliya jooga ra'iisul wasaarihi baa jooga gudoomiyaha baarlamaanka jooga waa lagu soo celiyay booliska ra'iisul wasaare ku-xigeenku meel adduun ka shaqeeya ma jiro waa qof yar oo mushahar meel lagu sameeyo marka saalax waxaan leenahay saalax qori soo qaado waxa timaada gooja cad inaad qori soo qaato baa ku dhiman waxa weeye hadeerna waan kugu mahadcelinaa inaad weynaatay bari hore daanaga ku soo korinayo inaad weynaatay muxuu ahaa 5 jir muxuu ahaa aad nagu gaadhay dawaad muxuu ahaa waa nagu raagtay koritaankaaga waa nagu raagay muxuu ahaa waa ducaan kugu daraynaa waxa weeye halkan xasuuq bay ka geysteen muxuu ahaa reerkaad ka soo jeeda marka kaalay halkan oo qorigaaga soo qaado horena dhaqaaqaaga una socon hadeerna waxa weeye daahir ya shamiso public batim labada aqal muxuu ahaa aqalka hoose aqalka sare dawladda federaalka ka jira muxuu ahaa deegaanada isina waxaan leeyahay ninka waa inaad jawaabtiisa munaasibka waa inaad siisaan dadka noocaas oo kala muxuu ahaa lagama aamuso ishuga saalax halkaas aan kaga hadhayaa waxaan u deenayaa golayaasha labada gole aqalka ay xamar oo joogaan ay jawaabteeda maxaa ka bixiyaan xasaatan ugu inta ka horanaya waxaan xalay arkaynay leeyahay isna xildhibaana oo leeyahay Mustafa Khayreeye oo Hargeysa ka hadlayo meel honkebel leeyahay muxuu ahaa TV lagu sheego fadhiya wuxuu yiri arrimaanu ka hadlay wuxuu yiri muxuu ahaa maxaabiis buu ka hadlay wuxuu ka hadlay dad halkan oo waliba anagana saaro yiri nin baa halkan lagu dilay oo la duubayo ninkaas shacab wax oo dhaqato ah Soomaalidu waxay tiraahdaa been taadil lagu celceliyo dadka qaar baa runmooda waxa laga yaabaa qofka baydhaba jooga oo xaq saasayn ama jawhar jooga muxuu ahaa ama diinsoor jooga inuu waxa ay shubayaan oo muxuu ahaa ay runmoodaan waan sababahan uga jawaabayn been taadil lagu celceliyo muxuu ahaa runba dadka qaar mooda Mustafa Khayreeye waxaan leeyahay Mustafa halkan cid xoolo dhaqatay ma jiro anigu maalintii dagaalkaasi dhacay waan joogay furinta horaan joogay Hargeysa joogtay furintan joogay waxa weey dad xoolo dhaqato halka joogaana ma jirto
degmadan laascaanood district laascaanoodna meel saaqo soo galo xoolihiisa ka soo gala muxuu ahaa ma jirto waxa weeye muxuu gobolka Soolba meesha Caynaba la yiraahdo iska soo galnaa og baa ku xigta ogna waxa weeye district Caynaba laga xukumaa meel geelooda iyo xoolahooda daaqaan halkan ma jiro ilaa districtiga maraaga ilaa areadaasna meel xoolo daaqaan oo dad xoolo daaqaan lagu dilaa ma jiro inaan abtu ahayna ma dilno inamadan abtigoona waa sii deyn jirno idinka caan ku ahaa inamada abtigooti anagu taariikh qoran way ku abtigoona inaan sii deynay iyadoo dagaaladii dhowr sagaashkii ku jireen idinka kuwi abtigo haydan adleyseen xoolo dhaqatana ninkan ma ahayn muxuu ahaa wuuna dagaalamay qorigiisu nisid waxa weeye dadka la dhibaateeyay awlaadooda waalidkood la xasuuqay dhibaatada loo geystay guryaha lagu dumiyay waxa weeye qaar aan la xakameyn karin waxa weeye dhibaatooyinka meesha geysteen baa waxan ka weyn cid dhaawac lagu dilayna anagu garan mayno idinkaan idiga maqan waxa tirinin waalan baad soo qaaday waad isku habar jeclatiin dhibaatada qofku markay gaadho muxuu ahaa bay taawataa marka hore kuma taawano safa khayrayo ninka waalan waxa weeye muxuu ahaa horta kuwa qorlugud ka haliyay oo muxuu ahaa ka haliyay iyo ninkan ay leeyihiin waa waalan markaanu labada muxuu ahaa dhageysanay kan ay leeyihiin waa waalan baaba ka miir qabay kuwa muxuu qorlugud ka haliyay isaga miir qab uga dhawaa waxa jirta muxuu ahaa Mustafa waxa tirinin waalan baa la hayaa horta laascaanood Mustafa maxaa ka dhacay markaad soo hadlayso leedahay dadka soo hadlayso maxaa laascaanood ka dhacay waxa weeye adigoo xildhibaan Soomaaliland sheeganaya saaqna habar jecla ka reerka xasuuq halkan ka geystay lambaroonka waxa weeye Mustafa inaad waxa ka hadasho waxa weeye 500 oo gurin ka badan 700 oo gurin ka badan baa dumay maanta dad reero dhan baa odag inta suuqa aaday waxa weeye muxuu ahaa 7 caruur wuxuu yimid islaantii caruurtii meeyda maanta halkan lagu xasuuq waxa weeye ninkii waxa sameeyay intuu TV-da soo fadhiisto muxuu ahaa waxa ka hadlo qof baa meel lagu dilay muxuu ahaa wax noocaas inuu ka hadlo ma haddii maalintii magaalada laga dagaalamay dhinaca bariga dagaalku bilowday ciidamada Soomaaliya inta magaalada bariga dhinaca bariga laga saaray saddexna waalan bay ka haysan xabad labana xabad bay ku dhufteen midna waa haystaan nin Sacuudiga laga soo dhaqan celiyo reer Laascaanood dhan garanayo waxa xanuunsanaya jeelka ku haystaan ma dheere u qaateen halkan Cabdi Bilaa Cabdi maalin magaalada laga dagaalamay garoonka gabadh deeqal yaahdo oo dhaawac xamar loo qaaday baa gaari Cabdi Bilaa oo ciidan habar jecel wataan oo halkan joogi jiray ciidamada markii magaalada way joogeen inta laga saaray 10 sano joogeen bay u yeedheen gabadh xanuunsan soo deeqal yahay waxay aadeen deeqa way soo jeesatay heebay qof xanuunsan yahay dhulshilko gaariga saarnaa baa lagu dhuftay waxaas dalka Mustafa ka dhacay hasoo magaasad waxa la soo ordisay maxaa qof waxa way ku yaadiro dadka muxuu ahaa xasuuqeen beenta hadii lagu celceliyo run baa la moodo halkan maxaabiisna lagu ma laayo maxaabiisna kaliya laga ma duubo waad ognahay maxaabiista haysan gaari biijiya dabada ugu xidheen 2 saacadood baa ku jiidaysay waxa tiri ciidanka Allah halkan jooga maleeshiyaadka ay saaq waxa tiri muxuu ahaa ciidamadu ha sameeyeen muxuu ahaa itigiskood haylaasay ciidamada akhlaaq la anagu maana waxa tiri gabdhaha kufsadeen ma naarintii joogeen cid may dhibaateen adeer kufsi reeb ka geystay waxa weeye muxuu ahaa dadka madaxu duuban jiray oo leen jiray 160 qof u dhumaantay madaxu duubteen laayeeno ay waliba markay laayeen waxay gali jireen xirada Axmed Xaakhire buurta sayidka Axmed Xaakhire markay Soomaaliland ilaa ku qaysatay wuxuu ka qaban jiray buurta sayidka magaalada dhakadeeda kharaj wuxuu ka qaban jiray dadka magaalada dadka ku laaya markay laayeen isagu tagi jiray maxaa operationnadaas wax ka fulin jiray waxa weeye waxaan leenahay wixii aad sameyseen cid halkan ka sameysay ma jirto dagaalka meesha gaarsiiseen baan la gaarsiinaya waxa weeye muxuu ahaa adkaysan hal yeesho waxa weeye muxuu ahaa waxa tiri ciidanku itigis male ciidanka itigiska saylaasho ciidanka Soomaaliland waxa weeye muxuu wadaarkiisa inta dagaalku dhicin mudaharaadka yeeleen dumar ma to si salmi mudaharaad saxan suuq xabada dhicin 20 isku maalin dilin 70 way dhacaan maata dumar iyo caruura wadaarkiisa kaliibo ciidanka Soomaaliya isagoo TikTok iska duubay magaalada marka dacalka ka joogo waa duminaynaa iyo hadaan dhamaanta xasuuqinayo wadaarkiisa mid dugsiga tababarka jooga muxuu ah berbera dugsiga tababarka sheekh oo nin weyn konton jiri inuu gabadh fiimayso qoojil yaado muxuu u lahaa u caayay isagoo sarkaal sheeganayo maxay media u soo fadhiistay anoo gabadh media ma soo fadhiisana kama hadla dhaqan oo malihin dhaqankayaga ma marka waxa weeye waxyaabahaasay baa ciidanku halkan ka sameeyeen ciidan ma waa ciidan qabiila waa ciidan dad ku soo duulay waa ciidan wax walba geystay guriyihii bay bilaqaysteen mid kamay tagin waxa weeye gooyaash sirraha saarnaa bay qaatay markii magaalada dacalka laga dagaalamay waxa weeye wax allaale waxay ka tageen kilibadooda meel walba ay ku jiraan ciidan qaranna maaha waa ciidan qabiil ma ciidanka ina Cabdi Bootaani Nuux Taaniyo Cabdi Dheere isku xigana fayeenada Taliyaash iska yihiin qaybaha lagu shaqeystaan baa ciidan qarana waxa reerkaaga wada geeyay ma la arko muxuu ahaa aaga mid kale qof kale haysta waxa uu leenahay adeer beentaad ku celcelinaysan waa ka jawaabaynaa waxaan uga jawaabaynaa war rabadaan ma jeclinaan wax badan si noo jawaabno anagu waxa siina cuntada kama soono laakiin waxa weeye hadaa ku celcelisaan Soomaali kala waxa laga yaabaa beenta lagu celceliyo maxay rumooda halkan maxaabiisna lagu ma laayo dhaqankaana ma lihin horena waynu dagaalam jirno dhaqankaas idinku muxuu ahaa idinku suntana ninkii soo saar ku xinkaan waxaan leeyahay warna miro aan bariga abtunahay waa dagaalanay aduguna siina miro kaale oo muxuu ahaa saalax sanamo ciidamada kaale hogaamiyo gooja cadde kaale
مصطفى waxaan leeyahay wareerkaaga dagaalku nagu ugu dambeynaya Mustafa laba wiilo isku eejeerna dagaalku waxan Soomaalidu waxay tahay nin iyo xabaashi waa loo kala tahay oo ninka ka yimi wajaalayo ka yimi muxuu ahaa gabilayna uu iska tigaya warka gobolada Kenya maskiinkan uu iska tigaya dagaalka cid isku hadhaysa waa bar jeclay dhulbaanta xawaali ninkeed waa loo kala tagaa Soomaalida garan waxyaaba haddeer ku kaarinayo haddeer aad moodaysid inaad soo fahmaysana way tahay dhibaataan halkan habar jeclay hormuud u ahayna kama dhicin ciidan qaranay halkan ma joogo ciidan ciil qabayaal oo aarsanaya oo taariikh doonay baa jooga 800 oo kaliya iska duubeen intay dagaalkaas socday markii magaalada dacalka ku jireen intaana magaalada ka saareen gabdhahay caayay dhaqankii aflagaadeynayay guryahay balqiisanayay wax allaale waxay ka tageen muxuu ahaa ma jirto kaadir kuwa ciidan uma naqaane waxaan leenahay Mustafa adiguna waxaad timaadaa gooja cadde inoo wada balana wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum.